بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دابضياشا قدرنتا يقيمي إنغا مضان waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena awoodsiinta naafada oo toddobaad walba maalin walba isniina aad ka daawataan VOA Somali TV toddobaadkan barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadan doonaa booqasho aynu ku tagnay dugsiga dadka aragga la waxay ku bartaan ee Albashiir ee degmada Waaberi ee gobolka Banaadir inagoo inta aan barnaamijkeena ku guda jirno aynu ku soo qaadan doono wareysiyo kala duwan oo aan la yeelan doono maamulka macallimiinta iyo sidoo kale ardayda wax ka barata iskuulkan inagoo idin soo gudbin doona nidaamka waxbarasho ardayda aragga naafada ka ah iyo sidoo kale caqabadaha ku gadaaman ee dhanka waxbarashada caruurtaasi aragga naafada ka ah ee wax ka barata iskuulka Albashiir barnaamijka waxaa idin soo saara isla mar ahaantaana halkan idinkaga soo jeediya anigoo ah Ismaaciil Maxamed Dacali Ismaaciil Aqila halka aad ka daawanaysaan waa VOA Somali TV mar kale waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena awoodsiinta naafada waa hagaag iminka waxaan gudagalaynaa barnaamijkeena awoodsiinta naafada ee VOA Somali TV waxaa garabkayga midig fadhiya Ustaad Cabdiqaadir Muxudiin Abuukar oo ah gudoomiyaha maamulka iskuulka indhoolayaasha ee Albashiir ee Muqdisho Ustaad marka hore waxaad ku soo dhawaataa codbaahiyaha VOA Somali TV waa hagaag daabadayaal iminka waxaa garabkayga fadhiya Ustaad Cabdiqaadir Muxudiin Abuukar oo ah gudoomiyaha iskuulka indhoolayaasha Albashiir ee Muqdisho Ustaad waxaad ku soo dhawaataa codbaahiyaha VOA Somali TV بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي أيان ولبهاي تيفيغان بوقشديسنا وأوغا مهد علنايا aad baa wansan tahay inaguna sharaf ayay noo tahay in aan soo booqano dugsigan marka hore waxaan rabnaa goormee ayaa la aasaasay dugsigan ujeedada loo aasaasayse maxay ahayd waxaa la aasaasay 15 May 2021 la aasaasay ujeedada loo aasaasayna waxa ay tahay markaan ogaanay baahiyo in loo qabo waxbarasho inay u baahan tahay Soomaaliya ayaan markaan ogaanay on qiimeynay kadib ayaan iskuulkan aasaasnay ujeedadiisna waxay tahay in la soo saaro arday tiro badan oo isku filan oo wax barta aad baad u mahadsan tahay tirada arday ee iminka iskuulka wax ka barata waa imisa waxay gaarayaan 39 ilaa 40 markii aad bilaabayseen tirada aad ku bilowdeen iyo rajada hadda idin muuqata waa sidee 3 arday ayaan ku bilownay hadda rajada aan leenahay rajada noo muuqata waa waxaan insha Allah taala guul weyn inaan gaarnay oo aan gaari doonaa noo muuqdo aad baa masantahay maxay yihiin caqabadaha ugu weyn uu wajahayo dugsiga Albashiir iminka hadda caqabadaha ugu weyn uu wajahay waxa ugu horeeyo laba caqabada ugu horeyso labada caqabad oo ah kiradii guriga iyo daily life-kii oo maalinlaha ahaa ee joogtada ahaa in ardaydan oo maxaa laahay ugu adag tahay in hooshooda aan sii xalino ma jiraan maaragta hay-ado ama dawli ha ahaadaan ama hay-ada kale ha ahaadaan oo iminka iskuulka taageera ma jiraan dowlad walaa hay-ad oo hadda gacan ku haysa iskuulka oo axwaashiisa iyo maxaa laahay xaaladiisa si gacan ku haysa ma jiraan ka waran bulshada iyo sidoo kale maaragta iyo sidoo kale waalidiintu sidee ayay ugu qayb qaataan horumarinta dugsiga Albashiir waalidiintu runtii warta waalidiinta waxay isugu jiraan laba isugu jiraan qaarkood waa qaar caruurta dhalay oo meeshaan joogaan qaarkooduna waa qaar yacni taageero ah iskuulkan runtii waalidiinta oo taageerada u ah way dadaalaan way taageeraan laakiin ilaa ayaa taageero oo maaleed ay kusoo garab istaageen horta ma jiraan waalidiinta dhalayna way ka warqabaan oo caruurtooda way soo wacaan way ka warqabaan waxay u sheegaan in waxbarashadooda ay wanaagsan tahay waxayna ku dhiirigeliyaan in waxbarashada ay tahay wax fiican ayagana ay maxaa lahaay wax weyn u tari doonta ay ku dhiirigeliyaan waa baaqaagii ku aadan dhinaca bulshada iyo waalidiinta caruurta aragga naafada ka ah ee dhalayba muxuu yahay ugu dambeyn baaqayga ugu horeeyo warta bulshada waaye bulshada waxaan ugu baaqayaa in qof kasta oo bulshada Soomaaliyeed ka mid ah iskuulkan inuu taageero
taageero maaleed inuu ku taageero cilmiyeed, taageero aqooneed, intaba waa u baahana. markaan leeyahay taageero maaleed, qof kastuu ilaahay subxaanahu watacaala oo muxsina oo wax u dhiibay iskuulkan inuu soo garab istaago, wax u qabto, taageero waajibay ku tahay. sababta waxa waaye caruurtan inta joogaane wax la baraayo waa caruur Soomaaliyeed, waa arday Soomaaliyeed oo la rabo beri inay dalkan wax ka bedelaan. marka dee haddaan la taageerin de lama arkaayo caruur arday oo istaagtay oo dalkan wax ka bedesha lama arkaayo. waa ardaydan waa ubaxii dalka waaye. marka in la garab istaago oo dhan walba laga garab istaago ayaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqayaa. ilaahay wax u dhiibay ee muxsiniinta ah. waxaa ii soo haray waalidiinta Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa waalid walba oo cunug arday arag la haysto inuu iskuulka nooyaasha Albashiir uu keeno, uu iskuulka weliba u hayo si fariya inuu wax ku baro, iyadoo wax transbora ay wax lacaga aan laga qaadaynin oo aan ka kafaalo qaadaynin. weliba wuxuu cuno, wuxuu cabo iyo dhar iyo jiifkiisa aan ka kafaalo qaadaynin. aad buu umahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa ustaad cabdiqaadir muxudiin abuukar oo ah guddoomiyaha guud ee dugsiga indhoolayaasha Albashiir oo barnaamijkeena toddobaadkan aynu ku qaadayna. iminka waxaa dhinacaygii maaragta midig fadhiya qayb ka mid ah ardayda wax ka barata iskuulka. ardayadan ayaan rabaa in aan marka hore ku soo dhaweeyo VOS Somali TV. marka hore waxaad noogu bilowdaa magacaagii oo saddexan iyo sidoo kale fasalka iminka aad dhigato. aad ma santay waa dhawihii magacaygu waa Abshiro Ibraahim, iskuulka Albashiir fasalka lixaad dhigtaa. Abshiro, iskuulka goormee ayaad ku soo biirtay? aad ma santay 2003 ayaa ku soo biiray. ka waran markii iskuulka aad ku soo biiraysay iyo iminka heerkaaga waxbarasho maxaa farqiga u dhaxeeya? aad ma santay wax badan oo u dhaxeeyo, waayo markaas waxbarasho toos maanan haysanin. marka intii maaday waxbarasho toos ay bilaawatay markaas marka cashirkii kugu saameynta badnaa inta aad ku guda jirto waxbarashada ee iskuulkan keebuu ahaa? waa mahadsantahay, wuu jiraa Soomaali waaye, waana tan hadda taagan oo ah qabiil in la isku laayo. cashirka hadlaya qabyaalada inaysan fiicnayn. erayada ka waran marka qabyaalada la xiriiray cashirkaas aad ku qaadatay maxaa ka mid ah? aad ma mahadsantahay. gabayaa jiro oo been Cabdullaahi Suldaan Timcade oo hortiriyey. eraydiisana waxaa ka mid ahaa dababtiisa gabay waan ka tegay daashadiisii, dabaaqayga waa taan jiray waa fog dawadeeda, shin kastoo daleed ugu baxda nabar istiidsiiye, dibnahaagu sheegay bartaa waa ku dayataaye, dirdir la islaayo intaan weerar daba joogno. eraydiisa intaas ay ka mid ahayd iyo qaar kaloo badan. aad baad umahadsantaha. Abshiro, maxaad rajaynaysaa mustaqbalka inaad noqoto? aad ma mahadsantahay. waxaan mustaqbalka waxaan rajaynayaa inaan noqdo xildhibaan. aad baad umahadsan tahay. hore u soca ayaan ku leeyahay oo guulayso insha allahu tacaala. iminka waxaan usii gudbayaa ardayda kale ee dhinacan iga soo qabanaysa. waxaan rabaa in aan soo dhaweeyo ardaygan. marka hore waxaad ku soo dhawaataa VOS Somali TV iyo barnaamijka awoodsiinta naafada. magacayga Cabdullaahi Jalaani Maya, dhigta iskuulka dadka aragga la Albashiir ee magaalada Muqdisho. maanta aad baan ugu faraxsanahay VOS Somali TV inay nagu soo booqato iskuulka Albashiir ee magaalada Muqdisho. aad umahadsan tahay. Cabdullaahi, fasalkee ayaa tahay? waxaan dhigtaa fasalka lixaad ee iskuulka Albashiir. ka waran maalinkii iskuulkan aad ku soo biirtay iyo iminka maxaa farqiga u dhaxeeya heerkaaga waxbarasho marka aad qiimayso? alxamdulilah, walaahi maalinta iskuulka imaanayay yani waxaa farqi ayaa u dhaxayso, waayo hadda waxaan bartay dhammaadiyan iyo waxbarasho diiniyan, laakiin xilligaas yani waxbarasho sax ah maysan haysanin. Cabdullaahi, maxaa kugu saameynta badnaa intii aad ku guda jirtay waxbarashada iskuulkan Albashiir aad ka heshay? waxay ugu saameyn badnaa yani aniga markaan imaanay ma isdhehaynin dadka aragga la yani wax way baran karaan, laakiin hadda way iga dhaadhacday.
cashir ma jiraa cabdullaahi maskaxdaada aan ka go-eynin isla mar ahaantaana xusuustaada mar walba ku dhisan haa waa maadada soomaaliya waa maxay qaran casharka ka waran marka qaranka iyo fahamkaaga ku aadan muxuu ahaa cashirkaas aad ka faa'iiday yani qaranku wuxuu leeyahay sumad yani uu kaga duwan yahay sumadaha kale waa gartay aada mahadsantahay cabdullaahi ugu dambeyn baaqaaga ku aadan caruurta kula midka ah maaragta aragga naafada ka ah muxuu yahay ugu dambeyn bulshada soomaaliyeed iyo waalidiinta soomaaliyeed ee dhalay oodka naafada waxaan ugu baaqayaa inay keenaan dugsiga albashiir ee magaalada muqdisho marka ayaana lisdhihin dadka naafada wax ma bari karaan hadda anigaad noo jeedaan waa dad aragala waxna waa baranaa marka waxaan idin rajeynaynaa dadka aragala aad soo keentaan iskuulka albashiir siday wax walaalahooda naafada oo kale wax loo bartaan v gaar ahaan qeybaha wareysiyada ardayda aynu la yeelanayna iminka waxaa dhankayga midig fadhiya ardaygan aan rabaa in aan kusoo dhabeeyo codbaahiyaha v o s Somali TV marka hore kusoo dhawow waa dhawaad aad iyo aad ayaa mahadsan tahay magacay muslim maxamed ismaan oo dhigto iskuulka albashiir dadka aragala aad iyo aad ayaa mahadsan tahay waa gartay fasalkee ayaa tahay muslim fasalka afraad ayaa tahay waa gartay iskuulka goormee ayaad kusoo biirtay 2024 aad kusoo biirtay waa gartay tan iyo markii iskuulka aad kusoo biirtay ilaa iminka heerkaaga waxbarasho maxaa farqiga u dhaxeeya qodayna u dhaxeeya waa markaa imaanayo qoraan ma kasii naqlin ma kasii had wax baa bartay waa gartay ka waran muslim waxyaabaha kugu saameynta badan ama cashirka kugu saameynta badan maskaxdaada aan ka go-eynin tan iyo iskuulka markii aad kusoo biirtay muxuu ahaa cashiro badanna wax soo kala waa gartay cashiradii iskuulkan markii aad imaatay aad ka baratay ma inoogu sheegi kartaa weliba si gaara adoo nagu jaleecayo maaragta dhanka diiniga waxyaabaha aad ka faa'iiday dhanka diini waxyaalo badanaa ka faa'iiday waayo xadiisaa baranaa qur-aanaa baranaa sunnaa baranaa aad iyo aad umahadsantahay sidoo kale aadaa umahadsan tahay xadiidka kugu saameynta badnaa tan iyo markii iskuulka aad imaatay muxuu ahaa حديث بلن واي لكن وحاكمت عن ابي هريره رضي الله عنه الى كران نقضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حسن وتقول ساعتي قال انه يري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم معنى اهان انه شرح كرت حديث كاسد اد نقدل اخرسي نو شرح الرسول صلى الله عليه وسلم يا لوريي كلمتان لو كلمة خفيفتان يعني وعربك جيز كفدت ثقيلتان كولس في الميزان ميزان حقيسا حبيبتان لو جعلي الى الرحمن اله حقيسا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لو كلمه ka waran marka erayadaasi ku dhaqankoodii iyo maaragta adigu noloshaadii maxay waxyaabo ay ka bedeleen maaragta ku dhisan noloshaada ma jiraan waxyaalo badan ay ka bedeleen waayo waxaa xaqiiq noqotay inay kelmadaas ilaa agtiisa qiimo weyn ay ka joogaan marka mar walba inaa ku wardiino aad baad umahadsan tahay muslim ugu dambeyn caruurta kula midka ah ee aragga naafada ka ah isla mar ahaantaana aan wax baranin maxaad ugu baaqaysaa waxaa dhihi lahay albashiir imaado wax bartaa aniga waxaana dad indhaha laaw naafa ah marka waxaa dhihi lahay idinkan wax bartaa aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa muslim oo ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga indhoolayaasha albashiir ee muqdisho waa hagaag daawadayaal guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenna awoodsiinta naafada oo toddobaadkan aynu ku soo qaadanay dugsiga indhoolayaasha ee albashiir ayaan soo gaarnay guud ahaan barnaamijkeenna intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa inta barnaamijkan mid lamida aynu ku kulmi doonno waa bahdii barnaamijkoo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo waxaan u mahad celinayaa kaamirmaankii dhanka kaamirada iga saacidaya cabdulle sidoo kale waxaan u mahad celinayaa injineerkii dhanka farsamada ee muuqaalkan quruxda badan naga saaciday injineer faysal amaana allah